marunba mise waa been inuu coronavirus u tallaabay qaar ka mid ah maraakiibta taagan xeebaha fogfog iyo kuwa qaada diyaaradaha ee ku sugan badaha waaweyn. Ku faafitaanka coronavirus gudaha markabka caanka ee loo yaqaan Charles de Gaulle kaasoo qaada diyaaradaha lagana leeyahay waddanka Faransiiska ayaa noqday mid khalkhal ku abuuray adduunka iyadoo la wada ogsoon yahay in uu yahay ku wareega badweynta kana fog dhulka iyo beriga. Waxa la isweydiinayaa sidee ayuu fayraskani u haleelay una gaadhay gudaha markabkaas. Miyuu yahay coronavirus mid meel walba gaadhi kara oo meelna aysan celin karaynin laguna tilmaami karo super virus geli kara dhufay kasta oo adag, mise waa awood rabbaani ah oo samada ka soo degtay? Su'aalahaas iyo kuwo kale oo la isweydiinayo ayaa jira. Warbixintan waxaynu ku eegi doonaa markabka diyaaradaha qaada ee laga leeyahay Faransiiska ee de Gaulle. Charles de Gaulle ayaa bilaabay socdaal 3 bilood ah kaasoo ka mid ah howlgalladiisii caadiga ahaa. Dushiisana waxaa saarnaa dad gaadhaya 2300 kuwaasoo isugu jira badmaaxayaal iyo shaqaalaha markabka. Qorshaha howlgalkiisa ayaa ahaa inuu gaadho badweynta Atlantic-ka kadibna uu sii maro badda Mediterranean-ka sida ku xusnayd jadwalkiisa shaqo, iyadoo la rabay inuu soo laabto dhammaadka bishan Abriil ee sanadkan. Bartamihii bisha 3aad Charles de Gaulle wuxuu ku xidhay xeebaha Qubrus. 13 bishaasna waxa uu ku soo noqday galbeedka Faransiiska, gaar ahaan dekedda loo yaqaan Brest. Isla waqtigaas waxa gudaha Faransiiska si weyn ugu faafay cudurka fayraska ee corona. Ra'iisul Wasaare Macron waxa uu ku dhawaaqay inay mamnuuc tahay in la isugu yimaado goobaha lagu kulmo, iyadoo ay shaqaalaha markabku xaqiijiyeen in ay u hoggaansameen go'aamada ra'iisul wasaaraha kana fogaadeen dhexgalka bulshada inta ay ku sugnaayeen dekedda Brest. Markii ahayd 16 Maarch, markabka Charles de Gaulle wuxuu ka tegay dekeddaas si uu u sii wato shaqadiisa iyo howlihiisa badda la xidhiidha. Maalinkaasna ra'iisul wasaare Macron ayaa soo rogay bandow guud oo ka dhaqan galay waddanka Faransiiska. 25 maalmood kadib 10 bishan Abriil, wasaaradda difaaca Faransiisku waxa ay ku dhawaaqday kiisaska 2 ruux oo ah badmaaxayaal. Waxa ay sheegtay in la baari doono shaqaalaha la socday markabka ay saarnaayeen. Isla goortaana wasiirka difaaca Mrs Florence Parly ayaa amartay inuu dib u soo laabto markabka diyaaradaha qaada ee Charles de Gaulle, iyadoo howlgalkiisina hakis gelisay. Kadib markii uu soo laabtay markabku ayaa la wada baaray shaqaalihii saarnaa, waxaana la helay lana ogaaday in kala bar shaqaalaha markabku ay qabaan cudurka coronavirus. Haddaba waxay isweydiintu tahay sidee buu ku gaadhay fayraskani gudaha markabka? Abaanduulaha ciidanka Faransiiska ayaa isagu aaminsan ama se rumaysan in cudurkani uu gudbay markabka waqtiga uu ku sugnaa dekedda Brest ee galbeedka Faransiiska 13 Maarso, balse shaqaalaha markabka ayaa iyagu sheegay inaysan la falgelin bulshada, haba yaraatee wax yarina uga soo gelin dibadda markabka tan iyo markii uu ku xidhay dekeddaas, taasoo keentay inuu jahwareerku cirka isku sii shareero islamarkaana ay sii xogeystaan aragtiyaha shirqoolku. Baadhitaano kala duwan oo ay samaysay warbaahinta caalamku ayaa waxaa lagu ogaaday inaysan xusin ciidamada badda ee Faransiisku ku dhowaad 50 badmaaxe inuu ku biiray rakaabka saaran markabka qaada diyaaradaha de Gaulle kadib markii uu ku soo xidhay dekedda Brest. Waa sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska New York Times dhowaan. Sidoo kale baadhitaanadaas waxaa lagu ogaaday in ciidamada badda ee Belgiumku ay ku shaaciyeen inay howlgal midaysan la geli doonaan Charles de Gaulle, iyagoo soo diri doona markabkooda la yidhaahdo Leopard bilowgii sanadkan, taasoo lagu qoray December 2019 warbaahinta waddankaas. 2 toddobaad ka hor intii aanu Faransiisku ku dhawaaqin in fayraska laga helay markabka Charles de Gaulle, wasaaradda difaaca ee Belgiumku waxa ay ku shaacisay barteeda Twitterka bishii 3 in mid ka mid ah shaqaalaheeda ka howlgali jiray markabka diyaaradaha qaada ee Charles uu ku dhacay coronavirus, taasoo la yaab noqotay inaysan warbaahinta Faransiisku waxba ka qorin arrintaas oo ay dhegaha ka furaysato, taasoo ah iyana mid meesha ka saaraysa aragtida shirqoolka, cadaynaysana in fayrasku ka gudbay dekedda, sidoo kalena ina tusaysa inayna ahayn masiibo uga timi samada, balse laba mid uu noqon karto inuu fayraskani ka raacay dekedda Brest ama ciidamada badda ee Belgiumka. Daawada maysleeda warbaahinta Faransiiska ayaa uga dan lahayd arrintan inay ku cabsi geliso shacabka. Asani daawade waa diyaarintii Cabdicasiis Axmed Xaashi iyo tabintii Cabdiraxmaan Nuux Xaaji Maxamed.